السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب يال سودو هذا كسودو هذا حسابات كي سوشيال ميديا فيسبوك بيج كي يوتيوب channel كسكريا بلاد انستغرام كحتى ماشا ديك لسوتي سودو وحان ما أنتو مدلنين إن أينو بلونو تحاني عن مقعدرني ACCA دولمر قابل تحاناها ACCA دولمر قابل wuxuu ka dhashay dareen aan muddo qabay oo aan islahaa in ay bulshadu hesho madal ay ka heli karaan macluumaad tifatiran isku xidhan oo dhammaystiran oo ku saabsan shahaadada caalamiga ah ee ACCA. dareenkaas oo ay xoojinayso su'aalo isdaba joog ah oo mar walba iga yimaada bulshada Soomaaliyeed khaasatan ardayda aad u danaynaya barashada shahaadada ACCA. sidaa daraaddeed waxa aan go'aansaday in aan bulshada Soomaaliyeed u dhiteeyo taxanahan kooban. saaxiibayaal, taxanuhu wuxuu ka koobnaan doonaa 15 xalqadood oo xalqadii ugu horreysay ay tahay midan aad iminka daawanayso. xalqada koowaad waxa aan ku lafaguri doonaa maxay tahay ACCA, taariikh kooban oo ku saabsan ACCA, siday ku bilaabatay, bulshada hadda ay ka kooban tahay beesheedu, imise beebar ayay ka kooban tahay, waa imise leefal, waqti intee la-eg bay ku qaadan kartaa qof inuu dhammeeyo ACCA, kharash intee la-eg baa kaga bixi karaa in uu qof diyaariyo ACCA, imtixaanada ACCA ka mid ah ee on demand-ka ah imise session ayaa sanadkii la galaa, sessionkii intee beebar baa lagu ogol yahay inaad gasho, yaa ACCA samayn karaa, minimum requirement-ga ama waxa shay meesha ugu yar ee lagu bilaabi karo ACCA aqoon ahaan maxay tahay, iyo haddii aad ACCA qaadato ama aad barato ama aad doorato maxaad faa'iidooyin ka dhaxli kartaa ama maxay kugu soo beerin kartaa. su'aalahaas iyo su'aalaha la halmaala ayaynu kaga jawaabi doonaa muuqaalkan. waxaan raaci doonaa 13 muuqaal oo aan kaga hadli doono 13 beebar ee ay ka kooban tahay ACCA. beebar walba waxa aan sheegi doonaa magaciisa, mawduucyada uu ka fargaraynayo, muhiimadiisa, qaab dhismeedka imtixaankiisa, iyo mas'uuliyadaha uu ku diyaarinayo beebar walba. waxaan kusoo xidhi doonaa muuqaalka 15aad ama xalqadda 15aad oo ah xalqad gabagaba ah oo aan ugu talagalnay in aan kusoo bandhigno. waxaan kusoo xidhi doonaa xalqadda 15aad oo aan ku falkin doono xogaha ku kaydsan shabakadda internetka ee accaglobal.com, tilmaamo guud iyo tusaalooyin aan ku biirin doono ardayda danaynaysa in ay barato ACCA iyo ardayda iminka ku dhex jirta. mar kale soo dhawaada saaxiibayaal. waxa aan ku bilaabaynaa inaan ka jawaabno fundamental questionska khuseeya ACCA. haddaan ku bilaabo maxay tahay ACCA. ACCA waxay u taagan tahay Association of Chartered Certified Accountants, oo aan ugu yeeri karno ururka xisaabiyeyaasha idman. waa hay'ad caalami ah oo loo aqoonsan yahay in ay siiso shakhsiyaadka doonaya inay noqdaan xisaabiyeyaal idman iyo xirfadlayaal maaliyadeed mid ka mid ah shahaadooyinka ugu sumcadda iyo karaamada badan markii la joogo ganacsiga iyo maaliyadda. waxaa la isla qirsan yahay in xubnaha ACCA ay ku hubaysan yihiin xirfadaha iyo aqoonta looga baahan yahay xirfadle guulaysta oo la xidhiidha xagga xisaabaadka, maaliyadda iyo ganacsiga. korxaadin kooban haddii aynu ku samayno ACCA taariikhdeeda,
goorta ay soo bilaabmatay. ACCA waxaa lagu aasaasay 1904 magaalada London ee cariga Ingiriiska. magacii loogu wanqalay bilowgii hore waxa uu ahaa London Association of Accountants. ujeedkuna waxa uu ahaa bulaalinta iyo horumarinta xeerar xisaabaad la isla waafaqsan yahay oo caalami ah oo fududeeya fahanka iyo hanaanka xisaabaadka ganacsiyada. bilowgii hore ayaa London ahaa dunidaysa ku baahday oo maanta waa beelaha caalamka kuwooda ugu qiimaha badan mid ka mid ah. waxayna haysataa xubno kor u dhaafaya 247,000 oo xubnood, ku dhawaad 562,000 oo arday oo ku sugan in ka badan 180 wadan oo caalamka ah. 1996 ayuu magacii London Association of Accountants waxaa si rasmi ah loogu dooriyey magaca hadda ee ah Association of Chartered Certified Accountants, iyada oo laga falcelinayo koridda iyo ballaarashada hay-adda ee xuduudaha ka gudbay iyo mas-uuliyadda caalamiga ah ee ay qaaday hay-addu. laga soo bilaabo sanadkaas waa 96 ACCA waxay hormuud u ahayd hay-adaha xisaabaadka koonka, waxa ayna door muhiim ah ka ciyaartay qaabaynta xisaabaadka iyo maaliyadda caalamka. aan ka jawaabno imse imtixaan iyo level bay ka kooban tahay ACCA. ACCA waxay ka kooban tahay 13 beebar iyo 3 level. levelka koowaad waxa uu ka kooban yahay 3 beebar, waxaana loo yaqaanaa applied knowledge. waxa uu ka kooban yahay beebarada business and technology oo loo soo gaabiyo BT, management accounting oo MA ah, iyo financial accounting oo FA ah. levelka labaad waxa uu ka kooban yahay 6 beebar, waxaana loo yaqaanaa applied skill level. beebarada uu ka kooban yahay levelka labaad ee applied skill level waa number 1 corporate and business law, performance management, taxation, financial reporting, audit and assurance iyo financial management. levelka u dambeeya waxaa la yiraahdaa professional level. waxa uu ka kooban yahay 4 beebar oo u qaybsan 2 kooxood. kooxda hore waxaa la yiraahdaa strategic professionals ama strategic essentials. waa beebarada kala ah strategic business leader SBL, strategic business reporting SPR. labada beebar ee soo haray waa optional ama waa doorasho qof kasta uu kala dooranayo 4 beebar ee soo socda. wuxuu kala dooranayaa advanced financial management, advanced performance management, advanced taxation iyo advanced audit and assurance. 3 beebar oo levelka koowaad ah, 6 beebar oo levelka labaad ah waa 9 iyo 4 beebar oo professional level ah waa 13 kaas beebar. guud ahaan imtixaanada laga doonayo qofku in uu ku baaso si uu u gaaro darajada member ee ACCA. imtixaanadu waxay u hormaysan yihiin 2 qaybood. qayb diyaar u ah in aad geli karto anytime, waxaa loogu yeedhaa on demand, iyo qayb sessions uun la geli karo oo waqtiga imtixaanka kalka imtixaanku markuu soo galo la geli karo. beebarada on demandka ah waa 4 beebar ee ugu horeeya ACCA. waa 3 beebar ee applied knowledge-ka ah, waa business and technology, management accounting, financial accounting iyo beebarka u horeeya ee levelka labaad oo skill levelka ah oo loo yaqaano business law ama corporate and business law. on demand waxaa loola jeedaa in ardaygu uu imtixaanka geli karo waqtiga uu isagu doorto ee uu diyaarka u yahay sanadka oo dhan. runtii waa fursad qiimo badan marka loo eego imtixaanadii traditionalka ahaa oo lahaa waqti iyo taariikh go'an oo imtixaanka la galo. horumada labaad waa imtixaanada fadhiga lagu galo ama kalka kusoo gala ama sessionada imtixaanka lagu galo. marka laga yimaado 4taas beebar ee on demand-ka ah, waxaa imtixaanada ACCA la galaa 4 jeer sanadkii oo kala ah bilaha March, June, September iyo December. waxa uu imtixaanku bilaabmaa Isniinta ugu horeysa ee bilahan, waxa uuna dhammaadaa maalinka Jimcaha ah, taas oo ka dhigaysa in uu socdo 1 isbuuc oo xidhiidh ah. halkii session waxa aad geli kartaa ugu badnaan 4 beebar. aan isla eegno yaa samayn kara ACCA oo yaa eligible u ah iyo minimum requirement-ga looga baahan yahay qofku inuu bilaabo ACCA. ACCA waxa ay u furan tahay in ay barato cid walba oo niyadda ku haysa in ay si deep ah u fahanto cilmiga xisaabaadka iyo maaliyadda iyo guud ahaan ganacsiga iyo maamulkiisa. shuruudaha ugu yar ee lagu bilaabi karo ACCA waxa aan u kala saaraynaa 2 qaybood. mid ay waajib tahay in aad haysato iyo mid tools ah oo aanay ACCA waajib kaaga dhigayn, aadan se wadi karin barashada ACCA haddii aadan ku hubaysnayn toolskaas. haddaan ku hormaro shuruudaha compulsory-ga ah ama qasabka ah
SCCA ay kaaga baahan tahay waxa ay ku xiran tahay hadba meesha aad ka bilaabayso. Haddii aad ka bilaabayso foundation level, ma jirto wax requirement ah oo lagaaga baahan yahay, waxaad si toos ah u bilaabi kartaa foundationka. Wax requirement ah waxaan uga jeedaa macnihii wax prior knowledge ah ama inaad aqoon hore u leedahay ama shahaado hore sidato lagaagama baahna. Haddii se aad si toos ah u bilaabayso SCCA qualification paperska oo aadan foundation soo marayn, waxaa shardi ah in aad haysato ugu yaraan shahaado secondary school ah. Qaybta labaad waa tooliska aad u baahan tahay si aad SCCA u barato. Waxa ugu muhiimsan luqadda Ingiriiska. Ma aha shuruud ay SCCA kaa rabto, waxa uu muhiim u yahay safarkaaga SCCA. maadaama imtixaanada iyo dhammaan buugaagta iyo agabka kale ee waxbarashada SCCA ay ku qoran yihiin luqadan. Ogow oo muhiim ma aha in aad PhD ku tahay luqadda Ingiriiska. Waxa kugu filan in aad fahmi karto akhris iyo qoraalkeeda iyo in aad qori karto. Inta aad ku jirto safarkaaga SCCA-na wax badan ayuu kori doonaa fahamkaaga luqaddu. Aanu gudubno sidee ku baran karaa SCCA ama intee hab ba available ah si aad u barato SCCA. Barashada SCCA waxaa available ku ah 3 hab inaad u baran karto. Number 1 waa self study inaad samayso oo ah in ardaygu si iskiis ah u barto paperka uu markaas imtixaankiisa isu diyaarinayo isagoo isticmaalaya buugaagta iyo exam kitska SCCA si iskiisa aynu isu baro. Qodobka labaad waa online classes oo waxaa jira xarumo online ah oo ay abufgaraysay SCCA oo bixiya casharadaas oo isugu jira muuqaalo duuban, live classes, practice exams iyo macallin aad si joogto ah ula wadaagi karto assignmentyada lagu diro si uu kugu saxo. Macaahidda ugu caansan dhinaca online-ka ee bixiya SCCA linkiyadooda iyo xogaha la xidhiidha muuqaalo kale ayaan ku eegi doonaa idanka rabbi. Qodobka saddexaad ee available-ka ku ah waa physical classrooms. Waa classyadeennii caadiga ahayd in sida traditionalka ahayd macallin qalin iyo samurad wata uu ku dhigo casharada. Saddexdaas habba waa available inaad u baran karto. Mid walba oo saddexdan ka mid ahi waxa uu leeyahay faa'iidooyin u gooni ah. Doorashadiisuna waxa ay ku xidhan tahay dooqa qofka, learning style-kiisa iyo marxaladihiisa nololeed. Dad baa jira ku caajisa in ay class fadhiyaan muddo dheer, qayb baan waxbaba ku fahmin haddii aanu macallinku hor taagnayn. Marka waxay ku xidhan tahay qof walba iyo sida uu dooqiisu u yahay iyo fursadaha uu heli karo. Waqtiga qaadan karto SCCA in lagu dhameeyo uu kala duwan yahay runtii. Waxaana saameyn ku leh factors badan oo ay ka mid yihiin aqoontiisa hore ee qofka oo aqoontaas oo la xidhiidha finance iyo accounting, dadaalkiisa, fahamka qofka iyo xaaladiisa nololeed. Oo qof 8 ilaa 12 saacadood shaqeeya maalintii iyo qof u xiraystay in uu SCCA soo sameeyo oo ama waddan kale u tegay ama shaqooyin kale oo dhan isaga dhaafay isku waqti kuma qaadanayso. Celcelis ahaan laakiin SCCA waxaa lagu samayn karaa sanadaha u dhaxeeya 2 sano iyo badh ilaa 4 sannadood on average. Kharash maxaa ku bixi karaa? Kharashaadka ku baxa SCCA laftigiisu uu kala duwan yahay. Waxa uuna ku xidhan yahay factorska ay ka midka yihiin meesha aad ka baranayso, habka aad u baranayso, study methodkaaga oo haddii uu qofku self study sameeyo iyo qofka classes xaadiraya isku qiimo kuma kacayso. Waxaan si rabaa inaan kula wadaago noocyada kharashaadka SCCA kaaga baxaya. Waxa ka mid ah ama waxay kala yihiin lacagta diiwaangelinta oo ugu horeysa registration fee-ga oo laga qaadayo marka ugu horeysa ee aad isdiiwaangeliso SCCA, subscription fee lacag la yiraahdo oo ah kharash sanadle ah oo lagaga qaadayo si akoonkaaga SCCA uu active kugu ahaado. Kharashka saddexaad waa exam fee ama lacagta imtixaanka oo ah lacagta laga qaadayo mar walba oo aad imtixaan galaysid. Haddii aanad ka gudbin ama ka baasin imtixaanka aad gashay, mar walba oo aad ku celiso waxaad bixin doontaa isla lacagta examination fee-ga paper walba. Lacagta saddexaad waa tuition fee oo haddii aad doorato in aad xaadirtid classes ama online ah ama physical ah kay noqotaba waa kharashka laga qaadayo si lagu baro maadooyinka SCCA. Lacagahaasi way kala duwan yihiin. Exam fee-gu paper walba paperka kale wuu ka duwan yahay. Waxaan dib idinkala wadaagi doonaa meelaha aad ka access garayn kartaan. Xogahan aan idinla wadaagayo intooda badani waxa ay ku kaydsan yihiin website-ka sccaglobal.com. waan idinla wadaagi doonaa linkiyadiisa insha Allah. Markaan ku leeyahay kharash intee la-eg baa kaaga bixi kara diyaarinta SCCA, waxaan xusi karaa noocyada kharashyada kaa bixi kara
laakiin lama saadaalin karo sababtoo ah ma taqaanid inta beebar ee kugu soo noqon karaa ma taqaanid inta class ee aad xaadiri doonto way kori doontaa examination feegu sanad walba waxbaa ku biira subscription feega waxbaa ku biira lacagahan oo dhan way koraan marka lacag jaan go-an oo intaasaa kaaga baxaysa cidna kuma dhihi karto waxay ku xidhan tahay adiga iyo sida aad isu maarayso haddii aad classes online xaadirto waxaa laga yaabaa in ay lacagtu kugu siyaado haddii aad classes physical xaadirto waxaa laga yaabaa inay lacagtu kugu siyaado haddii se aad self study samayso taasoo ah midaan sahlanayn iyada lafteedu waa laga yaabaa inaad lacag safe garayso waxaan u gudbayaa faa'iidooyin intee la eg ayaad ka helaysaa haddaad barato ACCA faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee aad ka heli karto ACCA waxaa ka mid ah aqoonsi caalami ah maadaama ACCA ay tahay shahaado laga aqoonsan yahay caalamka intiisa badan waxay kuu sahlaysaa in aad shaqooyin aqoontaada la xidhiidha aad ka qaban karto inta badan wadamada caalamka oo ixtiraam badan u haya ACCA faa'iidada labaad waa inaad noqoto xirfadoole xirfadle ma aha xirfadoole waa jamac ACCA barashadeeda waxaad ka dhaxlaysaa xirfado badan oo noloshaada iyo shaqadaadaba ku anfacaya waana midda ka dhigaysa qofka maanta ACCA ka qalan jabiya ama soo dhameeya in uu u muuqdo qof leh sanado dhowr ah oo khibrad la xidhiidha accounting ama finance ama auditing ama taxation iyo guud ahaan la talinta ganacsiga iyo xirfadaha la halmaala faa'iidada saddexaad waa fursado shaqo ACCA waxay ku furaysaa albaabo badan oo shaqo oo teedsan karani ilaa maareey guud maadaama ay employersku ama dadka shaqaalaysiiya ama shirkadaha waaweyn ay doonayaan qof tayo ahaan dhisan oo wax ku biirin kara ganacsigooda waxay door bidaan dadka ku hubaysan ama ku qalabaysan shahaadooyinka sida ACCA oo kale ah fursadahaas iyo kuwo kale oo badanba waad ka heli doontaa ACCA barashadeeda idanka rabbi saaxiibayaal waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan waxaa xigi doonaa muuqaallo isdaba joog ah oo khuseeya isla ACCA fadlan kusoo biir xisaabaadka aan ku leeyahay baraha bulshada sida Facebook iyo YouTube iyo Instagram-ka Sakriye Colaad mahadsanidin waa inoo iyo xalqadda xigta waxaan idinkaga tegayaa goor iyo ayaan guulaysta asalaamu calaykum